magaalada Muqdisho iyo Beledweynaba saacadii la soo dhaafay waxba ka dhacay waliba shalay hadda ku hormarno dhibaatadii Beledweyne iyo maadaama qabiir amniga taa ilaa ma iskale in la raajicoon intii Beledweyne waxa ka dhacay arrin yaab leh oo maaragtay waxa laga shaqeeyay oo waliba gacmo yani aan ku aadeynayno dawladda hay'adaha nabadgelyada inay arrintaas ka dambeeyaan waan u tacsiyanaynaa gabadhaas gabadhay ka maaragtay Allah u naxariisto waxaan isleeyahay gabadhaasu waxaa loo taargetgeliyey waa in la siiyo cadaaladda ikraam iyo maaragtay xuquuqdeedii saasaan isleeyahay marka yaad ku tuumaysaa oo falkaa samayn kara arrintaas laga bilaabo Cabdicasiis Afrika iyo ninkii kale oo yarkay kale oo lala qarxiyey arrimow gabadhan aeroboortka kulli arrin isku xiran waaye waxaan aaminsanahay anigu inaysa dawladda dhaafsanayn arrintaas dawladdu way ballaaran tahay baarlamaanka ku jira xukuumadda ku jirta hay'adihii kale dawladda qayb ka marka ma meel gaar ah hay'adaha amniga inaysa dhaafsanayn ayaan aaminsanahay maxaad ugu malaynaysaa mudane dawladda ayaday mas'uuliyad ka saaran tahay amniga muwaadiniinta waliba dadka hadda la qarxiyay dhammaantood waxay ahayn mas'uuliyiin dawladeed iyo xaruntii aeroboortka maxaad ugu malayn kartaa in hay'adihii amniga oo awood sharci leh inay weeraraan isla mas'uuliyiintii dawladda anu waxaan hayo labada nin oo aeroboortka mas'uuladaha la gashay ee diyaareen wateen hay'adaha amniga hay'ad kamid ah soo siibay habeen horaa la soo siiyey ayagaa aeroboortka soo geliyey ayagaa maaragtay shaqadaan u diray ayadoo carqaladaynayo doorashada oo laleeyahay dalka doorasho laguma qaban karo ayadoo laga jawaabayo ra-iisul wasaaraha iyo safiirka Maraykanka oo daraad meeshaas maaragtay exercise ku samaynayay maaragtay arrin daba joogto ayaa horta arrintaas loo sameeyey hay'adaha amniga kamida ayaana geeday oo geliday aeroboortka ma noo sheegi kartaa hay'adaas haddii loo baahdo waa sheegi doonaa laakiin hadda ma rabto inaan carabka ku dhufto ma rabo laakiin waa hay'ad gabadhana way iska caddahay iyadana waad ogeyd intay hadlaysay intay maaragtay gabadhaas arrinteeda daba joogtay shaksiyaadka ay ka hadlaysay shaksiyaadka ay ka hadlaysana anugu hadda kama xishoonayo qaarkood waa shabaab waan ku aqaanaa inay la shaqeeyaanaan ku aqaanaa inay yihiinaan ku aqaanaa inay hadda ka shaqaynayaan dad badan in la gumaadaan ku aqaanaa waxaan la socdaa anigu oon ogahay in ay taarget yihiin dad badan oo wiigaan hadda soo socda musalsalo badan oo qaraxa ay diyaarsan yihiin waxaan la socdaa meelaha lagu diyaariyey waxaan ogaa dad xasan sheekh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ugu horeeyaan inay taarget yihiin in la rabo in la qarxiyo oo maaragtay taarget yihiin weliba labadu ay ugu horeeyaan dad kale oo anigu ku jiri karo inay taarget yihiin wax badana socda oo hay'adaha amniga hay'ad kamidu ay wadaan hay'adaha amniga qaarkood iyo shabaabkuna waa isku milmeen waana isku daran yihiin waana wada shaqeyn waad mahadsantahay jira indha cadde Soomaaliya iyo Muqdisho waad u joogtay arrimaha amnigana wax badan waa ka taqaanaa laga soo bilaabo ilaa weerarkii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay iyo kan ugu dambeeyay Beledweyne ka dhacay xal oo lagu dilay xildhibaan Aamina dad badan oo Soomaaliyeed oo muhiim ahaa oo shaqaale dawladeed ahaa oo bulshada Soomaaliyeed inna iyo hoggaanba u ahaa la beegsaday mar walbana waxaa tuhun la geliyaa cidda weerarkaas fulisay inaanay al-shabaab ahayn maxaa xal noqon kara maadaama aanan jawaab lahayn baaritaan la sameyn dadkina wali ay dhimanayaan cidda weeraraysana aan la ogeyn
nimanka reer waqooyiga marka ay mararka qaar sida abgaalkay meel dabeecad isaga yihiin qodan qaxootiya inta raashinkii laga xaday mudaharaad sameeyeen marka baabuur bay rarayaan waxay ku rarayaan in maaragtay say waxay jiray ku cabirayaan waxay dhaheen jawaan xala guday oo dudada maray baadigoolaay eelka kii dhigay dacwoodtoy horta cidda halka laga sugaa waa ciddii dhibka geysata waaye oo gobolka banaadir iyo isow horena u hadlay ilaa iyo aamino ilaa iyo aeroboortka waxa waaye isku meel bay ka socdaan waxay ka socdaan ciddii ayadu rabta waxaas inay ilaalido mas-uuliyaddooda saareed ayaa samaynaya marka waxaan leeyahay anigu arrintaasu ma qarsana beesha caalamkana kama qarsana in badan oo kamidana waa wadaagnay waana iska warqabnaa ummadda soomaaliyana kama qarsana laakiin waxay u baahan tahay in la yidhaah warseel yeela ay u baahan tahay